fiican yahay Sharmaarke waxa iigu dambeysay saacado ka hor oo aan ku booqday jeelka weyn ee magaalada Garowe aniga iyo mas'uuliyiin ka tirsan Puntland arinta deeq aruurinta iyo leeyahay magba la aruurinaya Sharmaarke ku saabsan ee baraha bulshada aad arkaysaan arintaas runtii arin aysan waxba ka jirin weeye oo dad ay ku qaraabanayaan marka arinta Sharmaarke arin famil weeye waa arin qabiil u taala qabiilkii baana gacanta kula jira Sharmaarke waa caafimaad qaba waa fiican yahay maanta aan u tagay wararkaas iyagana ku saabsan inuu xanuunsan yahay waa been bari ilaa saa dambe uu soo bixi doona insha Allah. bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kuntu wanaagsan daawadayaal halkani waa xisaab wararka ku soo dhawaada barnaamijyada alaab xilligan oo kale aan idin soo gudbino hase ahaatee waxaan rabnaa barnaamijka barnaamijka ku eegno wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay fanaanka Sharma Boy oo ku xiran magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland warar ayaa la isla dhexmaray social media saacadii ugu dambeeyay oo la xiriiray in loo baahan yahay in lacag deeqa ah oo markaas la ururiyo taasi oo la doonayo in looga bixiyo diyada iyadoo sidoo kale ay jiraan Facebook iyo ama qaybaha kale ee bulshada oo arrimahaas si aad u hadalhayay hadaba arrimahaas ayaa waxa ka hadlay walaalkiis isla markaana asxaabta Soomaaliyeed ee soo faysane kaasi oo gaaray magaalada Garowe waxa uuna faahfaahin ka bixiyay in arrimahaas la isla dhexmaray dhamaantood ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin isla markaana loo baahan yahay bulshada inay ka tigtoonaadaan loona baahnaan xilligan in markaas la bixiyo ama la ururiyo dhaqaale sidoo kale wariye soo faysane waxa uu carab ku dhuftay in marka ay timaado in dhacdo caynkaas oo kale ah sida qofka inuu qof dilo in ay ka xaraan labada qabiilood ee markaas arrinka u dhaxeeyo isla markaana diyada ay kala qaataan aanan macnaha wax looga baahnayn bulshada in la soo dhax dhigo oo social media loogu ururiyo dhaqaale waxa uu sheegay in bedelkeeda loo baahan yahay dadka hadii ay wax sameynayaan dhaqaale ururin iyo wax arrimahaas la xiriira in looga baahan yahay in dadka masaakiinta sida agoomada kuwa kale ee barakacayaasha ah dadka dhibaataysan meelahaas in lagu bixiyo oo dhaqaale loo ururiyo balse arrinkan uu yahay mid u dhaxeeya laba beelood haatan ay wada hadlayaan meel wanaagsan ay marayaan ayna tahay arrinta mid aan looga baahnayn in dadka social media ku jira dhaqaale loogu soo ururiyo asigoo bal arrimahaas ka hadlaya qadar aynu wada dhageysan aad baa umahadsan tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee muuqaalkan uu gaarayna aad baan u salaamayaa ugu horeyn Sharmaarke xaaladiisa hadii aan ka warbixiyo waa uu fiican yahay Sharmaarke waxa iigu dambeysay saacado ka hor oo aan ku booqday jeelka weyn ee magaalada Garowe aniga iyo mas'uuliyiin ka tirsan Puntland booqashadeena oo daaranayd xaaladiisa iyo in aan u soo laab qaboojino runtii Sharmaarke arintiisu waa arin qadar rabbi ah shil buu galay sida aad wada ogtihiin waxaana ku dhimatay gabar Soomaaliyeed oo reer Garowe ahayd waxaana ku dhaawacmay dad uu isaga kamid ahaa inkastoo isaga dhaawiciisa faryarada oo kale ay tahay oo uusan weyneyn caadiyana marka qof shil uu galo oo isaga gaariga uu waday hadii dhimasho ay ka dhacdo waa wax caadi ah in qofkaas meel amaana lagu sii hayo inta labada dhinac ama labada reer ay ka heshiinayaan hadii aan u imaado arinta deeq aruurinta iyo leeyahay magba la aruurinaya Sharmaarke ku saabsan ee baraha bulshada aad arkaysaan arintaas runtii arin aysan waxba ka jirin weeye oo dad ay ku qaraabanayaan dadkaasna waxaan leeyahay hadii ujeedadiinu ay tahay in aad dad wax tartaan in aad dad u dhaqnataan way fiican tahay dadka Soomaaliyeed waa dad qiimo leh waa dad islaam ah waa dad xiliyada adag isgarab istaaga oo runtii isku hiiliya laakiin meelaha ay idinka baahan tahay inaad la aadaan bay fiican tahay sida agoonta abayaashooda ay dhinteen qaarkood askarta ay dhaleen dadka masaakiinta ah ee qaxootiga ku nool dadka xanuunsan ee xaaladooda aan wadanka waxba looga qaban karin meelahaas runtii ajar adduun iyo aakhiraba aad ka helaysaan inaad la aadaan dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo oo aan marka saddexaad ku celiyo aan idin xaqiijinaya inaysan waxba ka jirin hadii aad aragtaan qof ku haya ama soo qoraya qofkaasan waxa uu aruurinaynaa waa been sida aad ogtiin Soomaalidu waa dad dhaqan leh waa dad xeerar leh waa dad qabaa'il waa wax caadi ah oo quraanka xataa uu yaani ay ku jirto in dadku ay qabaa'il yihiin oo ay isku gartaan la tacaarafu marka arinta Sharmaarke arin famil weeye waa arin qabiil u taala qabiilkii baana gacanta kula jira
waxaan idin xaqiijinayaa in berri ilaa saa dambe uu soo bixi doono insha allah uu xaaladiisu ay fiican tahay marka dadka wada barnaamijkaas fanka ah lacagaha lagu aruurinayo walaalayaalow haddii ay idinka tahay naxariis dad meelaha ay u baahan tahay inaad insha Allah la aadaan barajay yahay daawadayaal waad maqlayseen sida uu uga hadlay waxaan filayaa inay ka wantoobaan dadka inta badan kusoo qoraya baraha bulshada in loo baahan yahay dhaqaale ururin lagu caawiyo fanaankaasi xaaladiisuna waa okay marka laga hadlayo dhanka dhaqaalahaas iyo macnaha in reerahaas ay kala qaataan arrintaasina halkaasi ku dhantahay isla markaana dad badan ay ka qanci doonaan sidoo kale waxa laga weydiiyay warar ay soo baxay saacadii ugu dambeeyay oo la sheegay in fanaanku uu xanuunsanayo arrinkaasina waxa uu sheegay inuu yahay mid aan waxba ka jirin isla markaana ay tahay arrin been ah oo la abaabulay fanaanka caafimaadkiisa uu fiican yahay aad u wanaagsan yahay halkaasina uu ku jiro wax dhibaato ah xanuuno nooci rabaan ha ahaadaan uusan qabin balse ay tahay waxyaabo been ah oo lagu buurinayo amaba markaasi laga doonayo in lagu xumeeyo ugu yaraan waxa uuna sheegay in loo baahan yahay iyada laftigeeda in aan loo saadin qofka haddii macnaha in qofka xorriyadda laga qaado ayaa dhibaato ugu filan laakiin in loo sii saadaaliyo in cudur uu qabo iyo xanuun inaysan wanaagsaneen iyana loo baahan yahay bal bulshada inay arrinkaasi ka wantoobaan mar kale waa kan wariye soo faysal oo ka hadlaya bal waxa ay ka jira xanuunkaasi bulshada ay isla dhexmarayaan gaar ahaan qaybta social mediaha in fanaanku uu xanuunsan yahay in kale waxa uu ka yiri sharmaarka waa caafimaad qaba waa fiican yahay maantaan u tagay wararkaas iyagana ku saabsan inuu xanuunsan yahay waa been waxaan isleeyahay qofku marka uu yahay qof magac leh dad badan baa waxa ay ka sameynayaan been abuur ujeedaday doonaan ha kala haadaan marka waa wax caadi ah oo jira marka wax ka jira ma walaal daawadayaal waan filayaa inaad si aad u wada fahanteen arrinkaasi wariye soo faysane oo ka waramayay xaaladda walaalkii fanaan Sharma Boy ee ku jira xabsiga magaalada Garowe iyo wararkii social media saacadii ugu dambeeyay la isla dhexmarayay haddii aan lahayd xanuunkaas iyo in dhaqaale loo ururinayo inaad si aad u garateen waxaan filayaa in bulshada ay ku baraarugaan isla markaana ay ka qayb qaataan in wax la wanaajiyo balse in wax la sii dumiyo oo la sii xumeeyana ay isan wanaagsaneen inta dib u kulmi doona dhamaanteed isku duuban waxaan idin filaafinaa sida inad galiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caadiyana marka qof shil uu galo oo isaga gaariga uu waday haddii dhimasho ay ka dhacdo waa wax caadi ah in qofkaas meel ammaana lagu sii hayo inta labada dhinac ama labada reer ay ka heshiinayaan haddii aan u imaado arrinta deeq aruurinta iyo la leeyahay mag baa la aruurinayaa sharmaarka ku saabsan ee baraha bulshada aad arkaysaan arrintaas runtii arrin aysan waxba ka jirin weeye oo dad ay ku qaraabanayaan dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo oo aan marka saddexaad ku celiyo aan idin xaqiijinayaa inaysan waxba ka jirin haddii aad aragtaan qof ku haya ama soo qoraya qofkaasaan waxa uu aruurinaynaa waa been sida aad ogtiin Soomaalidu waa dad dhaqan leh waa dad xeerar leh waa dad qabaa'il waa wax caadi ah marka arrinta sharmaarke arrin famil weeye waa arrin qabiil u taala qabiilkii baana gacanta kula jira waxaan idin xaqiijinayaa in berri ilaa saa dambe uu soo bixi doono insha Allah